كون هذا سادونسي نوشة نولاتي الجوش دونسي قاعدي واح كستو أدرتينا على هالشيء سكسس كان دونسي نقال وحو دونا بقى نقضو عم بقى نقضو بروريد لعق واحد دونتا نقضو أتقاعدي هيك دونسي نوشة كقاعدي وتشني تطوات عن نقطية درنتين أنا وحنا دن أنا أهين واحد مهم أي تودو ذي وقت يدمنسي إلى الرسول كل لحد بوكو انتسام معنا الدعطيبة أي معي لا تراستري مسكح هذا وحن كتشرو أودن بل هلا دمنا ورقة كسيبة أنت ورقة سوقاتي أضوح كاستحكا كسول الروسي رور ورقة أتكسمنسي أو مديرو إديتر أنت كوي ما دكوا لهذي أنت مسوق الرنو حنودن أي كسو كون بو أي يبنو لعكتي سيني تعال دي لون كاسيتو أني هنا أو سوق الري وحاس صد أفروي أي شنية تطبات نصنو خلاصكم سمين لها قفكني أو كسو الفوذي وكسو القبسنة عق وليه أيان سائلة إذا ينبو العق يرم حوسني وحن كسو دباتوني أنت أصلا نو وسيدي منتور أو كله منتور روح وين قف تاجن هيك دونيسي أو هالكاد كبلوذي يسونا كبلاوي صار سنة دباتها وكايستو برور قف كلو بورن بكسور استاغو markaas ku leeyahay dad duuysina buurtayo ridid waxay xasamay haduu xitaa waxaanu sheegaya ay sax tahay murumisan sababtoo ay isagiisii ay ku amal fali way hadaad wax soo baratay oo ku amal fali weeyay sino ogaadeen wax shaqeynaa kor dad qiimeynaysa bro ama mid kale ku yimaaday oo jid iska wanaagsan leh oo laakiin aan ka bilaabin halkaad imika taagan tahay tusaalahan mid jid wanaagsan oo ka bilaabay duubni tusaalahan ka aad buurantay Soomaa hadii aad imika adigu aad duubnaan lahayd talooyinkii ugu wanaagsanaa ayuu ku siin karay ku soo koobiya khaladaadka adigu geli lahayd oo kugu soo koobiya doorway saacadu kula qaato qof taagnaa heerka imika taagan tahay taladu ku siin lahaa saacadu kula qaadan lahaa wuxuu dhigmaysaa 2 sano amba sano sababtoo ah qofkani wuxuu soo maray exactly waxaad soo martay dhibaatooyinka soo martay oo intuu waxaas oo dhan kugu soo koobo hal saacad ayaad noloshaada intaa kale wadan karaysaa dad waxay dhahaan wax kasta oo iibsan karaysaa waqtiga mooyaane marka si loo eego iibsan karaysaa waqtiga hadda saacad ku soo koobsanaysid wax 2 sano aad ku baran lahayd ma iibsan waqti marka hadda tusaale ahaan adigu tahay qof buuran mentorkaagu wuxuu noqonayaa qof taagnaa heerka imika taaganta oo markiisii hore buurnaa oo imika jid wanaagsan leh oo taagan heerka doonaysa inuu taagnaado wuxuu doontaa noqdo tusaale waxaan u soo qaadanayaa jidka laakiin wax kasta oo ka dhigi karaysaa business waad ka dhigi karaysaa waxay doontaa noqoto waa qof taagnaa heerka imika taagantay oo taagan imikada heerka doonaysa inaad gaadhid wixii uu soo bartay waanu ku camal falay markaasuu ku sii baray muu ka boodin dhexe tan ba ugu muhiimsan intan dhexe maaragtaa waa inta ugu muhiimsan ee tahay inuu qofku sameeyo haddaad soo baratid ood ku soo bootid camalfalka ood sii bartid ma haysid proofkii ma haysid caddayntii inuu waxan shaqeynayo haddaad haysid inaad haysid caddayntii waxay ku xidhan tahay inaad adigu isticmaashay haddaanad isticmaalin macnaheedu waxa weeyaan mentor ma noqon karaysid waxaad tahay macallimiinta caadiga naqaano waxaan u odhan waayey mentorku waa macallin innagu waxaanu naqaanaa waxa weeyaan qofkan intuu soo istaago samuurad kuu dhigaya wax uu isagu soo bartay oonu ku camal falay tusaale ahaan macallin business ayaa kuu soo galay macallinkaasi markuu kuu soo galay buuggii intuu kala furay ayuu kuu akhriyey u baxay maan akhrista bro anu ma akhrista book it's like maxay taraysaa bro haddii aad akhriyaysid wixii anugu waan akhrin karay oo uu iga qaadan karaysa waqti aad u yar haddana English garanayna waa okay oo aan akhriyi karin buugga wixii ku qornaa okay marka ii akhri laakiin haddaan akhriyi karay kulliba anigu inta akhristo ay xaga ka bixi lahayd waana sababta inuu odhan waayey macallin waa mentor inuu macallinka wuxuu noqonaa kaas intuu soo galo samuurada ku qoriya amba wuxuu soo bartay dhigaya wuxuu ka booday camal falkii yani inuu ku camal falo taana khalad allaaliya khalad ay ku leeyihiin macallimiinta quraanku ma sababtoo macallinkii waxa lagu yiraahday haddaad horta baritid quraankii oo ku camal fashid oo sii bartid ay kuma oran quraankii haddaad soo baritid oo sii bartid waxa lagu yiraahday haddaad quraankii baritid oo ku camal fashid oo sii bartid quraanka haddaad quraankii baratay oo qof diintii wax allaaliya wuxuu ka aqaan aanu jirin oo ku camal falin diintii oo sii dee qofna kaama qaadan intuu soo ku eego qofku ayuu koranaya adigaagii baan ku camal falnaa wax ku soo noqon xiisadii businesska tusaalahan maanta waxa ku soo galay macallin business macallinkani wuxuu taagay halka doonaysid inaad gaadhid wuxuuna soo maray halkaad imika taagan tahay isagoo wuxuu taagnaa halkaad imikada taagan tahay tusaalahan lacagba muu haysan imikana waa milyaneer ayaa kuu soo geliya xiisad business xiisadaasi tusaalahan waa saacadda xiisadaa wuxuu kugu soo koobayaa waxaad dhibaato mari lahayd
صدح سنة صوص عضوده أيكو يسوق كوبيا خاص ساعة أوكلية waxaa laga yaabaa inay halkiisa saacad u dhigmin saacada kale macalinka kale oo uu ka qaado lacag inaba aan caadi ahayn waxaa laga yaabaa inuu macalinkana ku yidhaahdaba halkaas saacad waxaan kuugu gelayaa $10,000 oo macalinkana kuugu geli lahaa $2 mise $5 ma waani maxaan $10,000 ugu bixinaya saacad yaroo qof ii geliyo $10,000 maad ku bixin lahayd 5 sano soo socda in lagu soo koro khaladadkaad geli lahayd oo dhan waxaa laga yaabaa inaad xiisada uu galay uu kuu soo galay aad marka sidaa uga soo baxdayba knowledge-kii haddaad dee action qaadid haddaad tallaabo qaadid weeyaan knowledge-kaad haysid daraaddeed aad ku samayn karaysidba $5,000 bishii aad sii kicin karaysid haddana mentor kale aad soo qaadatid haddana mentorkaasna ku gaarsiiyo 30,000 100,000 aad sidaa u wadid mentoryaduna way sii kala qaalisan sidii u kala sareeyaan soo waana waxaa loo idhaahdo isku geynta waxaa tahay 5 qof aad waqtiga la qaadid 5 qofeed waqtigaaga maalinlaha aad la qaadatid isku geyntooda ayaa tahay waa ku kan adiga 5 qof isku soo wada geeyey ayaa tahay welibo anigu malihi macalimiintoo dhan way xun yihiin waa dhibaata sidani dee phobia ma qadsiniyo dadka ma nacsinaya macalimiintii kuu soo gelaysa xiisada caadiga kuugu dhigaysa wax ma garanaysa laakiin runta ayaa ah haddii uu qofku ku camal falo inuu kuu dhigi karayo wax aad u weyn ugumana soo jeedo macalimiinta sababta anoo glass 5 ayuu macalin intuu yimaaday igu dilay sawir aan sawiray oo qurux badnaa wallahi tacala loo eego dib aan waxaan u eego soo qaaday buugiyo galaaska hortiisa intuu soo istaagay uu yidhaahday baleega ninkan weyn wuxuu sawiray way nacsiiyey sawir wax la yidhaahdo oo dhan ma wax saas oo kala ma garanaysa laakiin farqiga wuxuu baa sheegay u dhexeeya mentor iyo macalin aynu naqaan macalinkaynu naqaano inagu marka macalina soo hadqado waxa aynu xasuusanayna inagu markaa buugu waa mentor oo kale xagga 10,000 kaga bixin lahayd mentor ay way fiicantay inaad ku bixisid lacag badan qof taagan heerkaad doonaysa inaad taagantay magaranaysa oo qofkaasi caadi buu kugu sheegaya bartaasa kaa khaldan bartaasa kaa khaldan halkaasaa sax sidan samee intaa cun maxaygan samee waxyaabahaas oo dhan buu kuu kala sheegaya qofkaasi magaranaysa laakiin buugu waxa weeyaan mentor oo kale mentor siduu yahay uma dhigmaya ma garanaysaa kuma lihi wal sida mentor waa isku wada mid maaha laakiin wuxuu aad ugu dhawaanaya mentor oo buug inaad akhridid qof gaadhay heerkaad doonaysa inaad gaadhid aad ayay waqti kuugu yaraynaysaa oo mentorku xaggu ka qaadan lahaa $10,000 kan wuxuu qaadanayaa $20 oo $20 weli ma wada $3 waxaan ku cuni karayay waxaas bilaash haddaad maanta google taabatid ood ku qortid buugga magaca aad doonaysid ood PDF raacisid bilaash ayaad ku helaysid maxaad ku diidi knowledge bilaash bro diidi karaysid bro come on ay qisadeen ku sheegay may dhicin bro kaftami